daawadayaal idil ahaantiinba meel walba oo aad joogtaan halkan waa Gobonimo Doon TV qodobada maanta barnaamijka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah waxaa shalay garoonka diyaaradaha magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado loo diiday in ay ka degto diyaarad ay la socdeen xubno ka tirsan maamulka cusub oo gobolka Gado u magacaabay Axmed Madoobe. diyaaradda ayaa hawada Garbahaare ka soo laabatay kadib markii lagu wargeliyay in aysan soo degi karin, waxaana amarka diidmada ahi bixiyay saraakiil ka soo horjeeda maamulka Jubbaland. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in diyaaradii ku jeeday Garbahaare ay degi weysay kadib markii ay weysay gacankii laga hagi lahaa sida uu hadalka u dhigay. waxa uu sheegay in ay socdaan baaritaano ku aadan sababta keentay in la waayo xiriirkii garoonka, isagoona xusay in ay suurtagal tahay in gacanka la damiyay ama dab la'aan uu u damay. maanta diyaaradii baxday gacankii laga hagayay ayaa la damiyay ama ka damay oo batari la'aan ayaa ku dhacday marka ay weysay xiriirkii garoonka ayay dib u noqotay, ayuu yiri Maxamuud. madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta Gado in ay taageeraan maamulka cusub ayna joojiyaan isbaarada ay maamulka u dhiganayaan. waxa uuna xusay haddii maamulka cusub xilka ka dhamaado la qabanayo doorasho ay siyaasiyiintan ka soo qaybgeli karaan. maamulka hadda haysto Gado uu horay u sameeyay madaxweynihii hore ee Farmaajo ayaa si weyn uga soo horjeeda in gobolka Gado yimaadaan maamulka cusub uu Axmed Madoobe u magacaabay kana shaqeeyaan Gado. intaasi waxay ahaayeen qodobada maanta kuwooda ugu doorka roon. fadlan daawada waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan inaad sii sheergaraysid page-keenana kusoo biirsi mar walba ay kugu soo dhacaan waxyaabaha halkaan aynu soo gelino.